السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي meel walba ay joogtaan kusoo dhawaada shariifka 252. asxaabay maanta duu ilaa yiraahdo waxaa rabaa maaragtay inaa idin tuso sida Facebookga magacaaga loogu daro magac kale ee bracketka ku jiro. Profile-ka marka la soo galo sida magac kale ee magacaaga caadiga ah maana magac kale ee naanesta ama nickname-ta ah loogu darsado sida hadda idin muuqato kale. Okay, marka ugu horeyso haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelka sidoo kale asxaabtaada u share garay. Okay, marka ugu horeyso waxaad galaysaa Facebook kadibna waxaad galaysaa profile-kaaga kadib waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay see your about info kadibna hoos ayaad u baxaysaa halka ay ku qoran tahay other names meesha ay ku qoran tahay meesha ka hooseysa ee add other name ayaa taabanaysaa. markaa taabad kadib waxaa ku soo baxaysa sida tan name type maaragtay name type geeskeeda waxaa hadda ku qoran nickname-ta dhinaceeda falaar yar ayaa ka muuqata ama isla nickname-ta haddaad taabato waxaa kuu soo baxaya waxyaabo badan, yacni magacaas baraaketka ku jiro waxyaabo oo u taagnaan doono ayaa kuu soo baxaya. midkood ayuu u taagnaan doonaa waxyaabaha midkood ama nickname uu noqon doonaa ama kuwaan kaleeta ayuu noqon doonaa magacyadan kale. marka haddii aad rabto midkaa rabto ayaad adiga dooranaysaa. haddaad rabto birth name marka hadda nickname aan rabnaa nickname noo saar kadib meesha name ay ku qoran tahay waxaa ku qoranaysaa naanestaada, tusaale ahaan shariif oo kale. marka haddii aad rabto naanestaada inay muuqato oo dadka arkaan markay profile-kaaga soo galaan ee arkaan halkan oo show at top of profile ay ku qoran tahay ayaa waxaa saaraysaa sax. halkan ayaa sax saaraysaa kadibna waxaad leedahay save. hadhow markii qofka oo profile-kaaga soo gala ayuu arkayaa naanesta ama magaca bracketka kugu jiro. fahanti sidaan oo kale muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. haddii aad ka heshay like saar sidoo kale asxaabtaada u share garay. hadduu ilaah yiraahdo intaan muuqaalka xiga ku kulmeyno waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.